wafdigan uu hogaaminayay agaasimaha caafimaadka loo dhan yahay ee xafiiska sare ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Peter Salama ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fasiya Abikar iyo waliba xubno ka socday wasaaradda caafimaadka noo yimid wafdi ka socda WHO wafdi heer sare ah oo ka kooban ilaa 13 qof wafdiga wuxuu daba socday booqashadii uu ku yimid agaasimaha guud ee Emro Dr. Ahmed Al-Mandari imaatinkiisii ayuu daba socdaa wafdiga waxay u yimaadeen inay nagala shaqeeyaan sidii loo hirgelin lahaa looga shaqeyn lahaa qorshaha caafimaad loo dhan yahay ee loo fuliyay dawladda Soomaaliya loo qoray ay u qortay wasaaradda caafimaadka ee federaalka wafdiga wuxuu ka kooban yahay meelo badan oo ka mid ah meelaha xaaladaha degdegta ah ee shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeya ee dhaqaalaha caafimaadka meelo badan oo ku dhisan yahay organization-kooda ayuu ka kooban yahay waxay naga kaalmeynayaan sida loo fulin lahaa qorshahaas oo afka qalad loo yaqaan Universal Health Coverage Roadmap for Somalia wafdiga waxa uu ku yimid martiqaad iyo codsasho ka timid wasaaradda federaalka ee Soomaaliya waqti badan ayaa la sugayay dhanka kale Dr. Fasiya ayaa sheegtay in wafdigan uu booqan doono qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya si ay ugu korgalaan xaaladaha caafimadeed ee ka jira deegaanadaasi iyadoo ay hogaaminaysa wasaaradda caafimaadka wafdiga wuxuu booqan doonaa meelo ka mid ah Soomaaliya si ay ugu soo korgalaan xaaladaha waxaan rajaynaynaa inaan la qaadano waqti badan oo munaaqasho ah sidii xal loogu heli lahaa waxyaalo badan oo annaga hadda aan ku taminayno inaan ku horumarino caafimaadka Maxamed Rooraye Galmudug TV